السلام الله صاحبي تلكم إنه قصد الحين دعلان لها سبسكرايب من أسارتك قبل لكن أفرتي سي مقالة الأنصار دقاء أيسان كون عفل مقالة كمان تحن كوغلا بداقايا 10 ويب سايت oo ay tahay inaad ogaatid 10 website oo dabcan muhiim ay tahay inuu qof walba ogaado waa tahay website-ka ugu horeeya magaciisa waxaa la yiraahdaa virus total website-kan waxaa iska leh Google wuxuu ka caawinaa website-kan waxay tahay inaad file inta soo qaad aad gelisid kadibna uu ku scan gareeyo oo virus walba ugu yaraan 60 virus oo ku ugu waaweyn ah ama dhammaantood virusyada dhanba uu ka scan gareeyo dabcan antivirus kala mid ma ahan oo antiviruska wax walba oo computerkaada ku jira uu scan gareynaya balse kan hal file oo kaliya hadii aad u baahantahay inaad scan gareysid halkan ayaad gelinaysaa website-ka magaciisa ayaad qoraysaa waxa qoraysaa virus total markii aad qortid waxa ku dhufanaysaa linkiga ugu horeeya kadib wuxuu ku leeyahay choose file ayaa leedahay file ayaad soo dooranaysaa file-ka rabtid bi iska dooro tusaale ahaan kan iskaba dooro kadibna waxaa leedahay confirm upload abar ayuu wadayaa kadib intuu ku geenayaa uuna analyze gareynayaa file-ka aad gelisay meesha wuxuuna ka baarayaa virusyada oo dhan sidaasna ayuu kugu sheegayaa inuu virus ku jiro iyo inuusan ku jirin oo nadiif uu yahay sugi ilaa uu ka dhameynayo analyzing-ka kadibna wuxuu ku leeyahay no security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious wax meeshan virus ah oo soo qabtay ma jiraan sidaasna ayaad ku ogaanaysaa waxaan rajaynayaa inuu ku caawin doono website-ka xigana waxaa la yiraahdaa have I been pwned la yiraahdaa website-kan tusaale ahaan waxaa jiro mar walba in wax la jabsado oo wax la hagareeyo ama website ha noqoto ama meel walba ha noqoto badanaa mar walba in wax la hagareeyo way dhacdaa saas darteed ciwaanadaada ama gmailadaada ama wax walba adiga iska leedahay sidee ku ogaan kartaa in la jabsaday ama in macnaha faraha ay ka baxeen ama data adiga aad lahayd inay faraha ka baxday sidee ku ogaan kartaa si aad u xaqiijisid in datadaada faraha ay ka baxday website-kan la yiraahdo have I been pwned ayaad galaysaa kadibna waxaad qoraysaa email-kaaga ayaad qoraysaa kadibna wuxuu kuu sheegayaa in datadaada ama noqoto password-daada ama wax walba adiga macluumaad aad leedahay inay gacanta ka baxday oo cid kale ay faraha u gashay ayuu kuu sheegayaa tusaale ahaan website-ka gmail-ka doonta iska qor tusaale ahaan gmail been hadda iska qoraynaa @gmail.com ayaa leedahay kadibna wuxuu kuu sheegayaa in gmail-kan macluumaadkiisii ay faraha ka baxeen good news no pawnage found wax hadda la soo helay ma jiraan oo website-ka oo gmail-kan tusaale ahaan wax data ku saabsan oo macluumaad ah ama password ah ama adiga waxa iska leedahay oo qad oo farahaada ka baxay ma jiraan saasna ayaad ku ogaan kartaa gmail-kaaga ayaadna gelinaysaa halkaas website-ka xigana magaciisa waxaa la yiraahdaa 10 minute mail tusaale ahaan website ayaad iska gashay ama website-ku raba ha noqdo website markii aad gashayna wuxuu ku weydiiyay gmail inaad gelisid dabcan ma rabtid inaad gmail-kaaga saxda aad gelisid oo kaliya wax inaad check gareysid ayaad u baahan tahay ama maba rabtid inaad gmail-kaada gelisid ama website-kaasba ma rabtid inaad dib ugu soo laabatid mar dambe saas darteed waxaa gelaysaa 10 minute website-kan la yiraahdo 10 minute mail kadibna wuxuu kuu sameynayaa gmail oo ku meel gaar ah ayuu kuu sameynayaa gmail-ka ayaad qaadanaysaa already waa kana waqtiga uu shaqeynayana waxa waaye waaba 10 minute waa ma fahanti marka gmail-ka ay qaadanaysaa website-kan saasa ku gelinaysaa waana temporary email waxaan filayaa inuu ku anfici doono website-ka xigana waxaa la yiraahdaa down for everyone or just me tusaale ahaan waxaa dhici karto inaad website aad gashid oo google.com ama website-ku raba ha noqdo kadibna waxaa macquul in lagu dhahaa website-kan haddartan lama heli karo markuu uu kuu soo qoro website-kan waxaa macquul in aad dhahdo cilada ma dhankaaga mise qof walba ayaa kula qabo oo ciladan way jirtaa oo website-ki ayaaba down ah si ku ogaan kartaa website-ka inuu down yahay ama inuu shaqeynayo oo kaliya ay cilada ku haysato website-kan waxaad galaysaa la yiraahdo down for everyone or just me wuxuuna kuu sheegayaa in website-ka aad raadinaysid haddii uu hawada ka maqan yahay ay macnaha cilad jirto oo qof walba uu kula qaba ay tahay ama in cilad adig kaliya kugu gaara inay tahay tusaale ahaan waxaan qoraynaa facebook.com facebook ayaan qornay facebook markii aad qortid uu raadinayaa waa kana loading ayuu ku leeyahay kadibna wuxuu ku leeyahay it's just you facebook.com is up kaliya ayay ku haysataa ciladan hadduu facebook.com uusan kuu shaqeynaynin kaliya ayay ku haysataa oo dadka kale uu u shaqeynaa oo website-ki uu shaqeynayaa si ahaantiisa ayuu ku leeyahay halkaasna ayaad ku ogaanaysaa inay cilada kaliya tahay in dadka dhan ay kula qabaan website-ka xigana waxaa la yiraahdaa witchbook asagana waa website aad ka heli kartid book walba oo aad u baahan tahay oo isleedahay inaad akhrisatid
www.witchbook.net ayaad gelaysaa kadibna meeshan waxaad ka helaysaa buug walbo oo aad rabtid inaad akhrisatid. haddii aad jeceshay inaad buugaagta akhrisid waxaan filayaa inuu ku anfici doono. website-ka xigana waxaa la yiraahdaa Pixabay. Pixabay asagana waa website kaa caawinaya inaad heshid sawiraan free ah. waxaad gelaysaa pixabay.com kadibna halkan ayaad ku qoraysaa sawirka aad u baahan tahay oo walbo. tusaale ahaan sawir ku saabsan technology camal haddii aad rabtid technology qor kadibna raadi oo search dheh kadibna wuxuu kuu soo saarayaa sawiraan farada ka badan. halkaasna waxaad kusoo download kartaa sawirka asagoo free ah oo free download ayuu ku leeyahay. kadibna accept all cookies aa leedahay kadibna download ayaa leedahay. inaad sign up garayso ayuu kaa rabaa. waxaan markii aad security checkan waxaan aad dhaaftid mountain hills tusaale ahaan kan dooro kanna dooro. waxaan filayaa inay okay tahay. inaad robot tahay inaad biniaadan tahay ayuu kala xaqiijinayaa. kadibna download ayaa leedahay. sawirkana sidaas ayuu kuugu soo gelayaa. waxaan filayaa inuu ku anfici doono. sidoo kale website-ka xigana waxaa la yiraahdaa Just to Watch ayaa la yiraahdaa. Just to Watch isagana waa website kuu sheegaya TV ha noqoto ama ha noqoto wax walbo oo la daawan karo ha noqoto. wuxuuna kugu gaadgareynayaa ama filim soo baxay tusaale ahaan wuxuuna kugu gaadgareynayaa ama kugu hagaaya meesha aad ka heli kartid filimkaas isaga ah ama TV showgaas ama wax walba aad u baahan tahay meesha aad ka heli kartid ayuu kuu hagaaya. dabcan waa hage kuu hagaaya meesha aad ka heli lahayd filimkaas. midka kalena waxaa la yiraahdaa Product Hunt. Product Hunt isagana waa website kale. website-kan wuxuu kaa caawinaya waxay tahay maalin walba waxaa jirto productyaal soo baxo oo aadan garanayn cid soo saartay. qaar ka mid ah dabcan kuwa waaweyn waxaa laga yaabaa inaad taqaanid cid soo saartay laakiin productiga haddii aadan garanayn dadka soo saaro halkan ayaad gelaysaa productiga magaciisa ayaad ku qoraysaa. waxaadna ka helaysaa productigaas dadka soo saaray iyo meesha uu ka imaaday iyo haddii aad u baahan tahay inaad gadatidba. isagana waxaan filayaa inuu ku anfici doono. sidoo kale midka kalena waxaa la yiraahdaa isagana Hacker Type ama Hacker Typer Hacker Typer haddii aad jeceshana waxaa garaysid laakiin aadan aqoonsid wax loo hagareeyo. website-kan ayaa gelaysaa hackertyper.net la yiraahdo kadibna waxaad matalaysaa inaad waxaa garaynaysid oo hadda haddii waxaan iska qorqorno qofka noo jeedo ama adiga laftirkaaga waxaa laga yaabaa inaad u malaysid inaad waxaa garaynayno. kanna waxoogaa waa faan waxaan rajeynayaa in asagana ka heli doonto. midka kalena waxaa la yiraahdaa oo ugu dambeeyo videos.pixels.com. pixels.com waa website weyn oo sawiraanta wax walba ka helaysid laakiin sidoo kale waxaa ka heli kartaa videoyaal ayaa ka heli kartaa oo free ah. waxaa qoraysaa videos.pixels.com kadibna wuxuu kuu soo saarayaa videoyaal quality-good aad u sareeyo oo aad soo download garaysan kartid si free ah weliba. tusaale ahaan videogan ayaad ka heshay free download ayaa leedahay. sidaas ayuuna kugu soo gelahayaa videoga isagaha. haddii aad rabtana video YouTube aad samaysid oo kale haddii aad u baahan tahay inaad wax kale ku samaysatid videoga dabcan wuu ku anfici doonaa saan filayo. intaas ayayna ku egyihiin. waxaan rajeynaa inaad ka heshay. haddii aad channelka weli subscribe aad saarin kaliya waxaa u baahan tahay inaad gamaadid aad ku qortid meeshan kadibna uu kuu soo baxo subscribe aad saaratid gambaleelkana aad furatid si muuqaalada aan soo dhigay halkan ay mar walba kuu soo gaaraan. waxaan rajeynayaa in muuqaalka aad ka heshay. sidoo kale muuqaalka like saar si dad badan uu gaaro share na dheh asxaabtaada la wadaag wixii fikir iyo fariin aad noo haysid comment-ga noogu. intaan kulmeen muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.